السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر واضح حبدي سجارات برنامج كأني Deyrso-Diintada. حلقة مانتا أرين هي ما ينفع هذنا وأنا أرين آد ضدك والحسابات مسلم non مسلم با حتى مسلمين تقال كل misconception عن كايستان وثقة نعرف فانسينهم. أرين تاسو حويان أرين إسلامكو دمركا مياه وعدالة فلي نسو ودلمي. والهويدينو عدو جينا ورسانو روبرت سبنسر jawaabta bixiyay buuggiisa Islam Unveiled waxa uu leeyahay Islamku waa u dulmiyay gabadha waxaana ku dulmiyay shareecada oo xijaab u xidhay waxaasoo dhan samaysay ayaa uu leeyahay waayahay waxaan weydiinay Robert Spencer intaas ma wax dheer ayaa jirta so intaas ma nabiysanay gabadha Robert Spencer haddana buuggiisa The Truth About Muhammad ayaan xisi cali ayuu nooga sheekeynay uu leeyahay ayaan xisi cali baa inay khashiftay fiidiyo soo duubtay hablo Soomaaliyeed oo qaawan oo inta qaawisiin aayada quraan ku qorteen wasax xijaabadaan xidhnaa waan qaldanahay haddaan qaawin aayada quraan ku qornaa qaldanahay yani inkastoo uu qoslaysiin intiina Soomaalida waayo waxaan wax weliga dhacayna ma aha sawti bal waayahay aan ula tagno weydiino Robert Spencer waxaan hablahayaga haddana saas u galay Robert Spencer wuxuu inoo joogaa buuggiisa The Truth About Muhammad oo uu leeyahay Judeo-Christian Heritage College يعني waxa xal ah yahuuda iyo nasaarada waxay isku waafaqeen ayaa xal ah ee dhaxalka iyaga u ah walan tarda anka yahuud wala nasaara hatta tattabi'a millatahum ayuu ka warraan noqon maayaan marnaba yahuud iyo nasaara ilaa u go'do raac diintooda walaaleeyno diintana loo yeerayo miyaa ay tahay iyada laftigeedu dumarka wanaajisay maadaama uu ku faanayo teennana uu caayay dumarka iyo islaamka loo kaleeyahay kaalay waxaan eegno maxaa inaga horeeyay diintiisa ku jira xagga dumarka markay timaado buugga Leviticus-ka ee Towraadda ku jira waxa uu leeyahay hooyadu haddii ay dhasho wiil 40 cisho kaliya ayay tirsanaysaa oo ayna daahir ahaanin laakiin haddii ay gabadh dhasho waa inay 80 cisho tirsataa yacni rag iyo dumar baa siman iyo waxaa soo dhaafay haddii ay gabadh dhasho way ka wasakh badan tahay inay dhasho wiil saa darteed 80 cisho ama levelabka muddadii wiilka ayay hooyada tirsanaysaa buugga Genesis-ka sadarka saddexaad waxa uu leeyahay sababta adduunkan loogu soo tuuray waxa weeyaan ee jannaatu cadni loogu soo saaray waxa weeyaan gabadh awgeed aadan waxa lagu canaanaya inuu dhageysto xaaskiisa saa darteed bay ugu malayn jireen baadariyaal badan inay tahay gabadhu ilxun halka uu quraanku ku sheegay gabadhu leeyahay muxsana yacni qof dhowrsoon saa darteed bay xataa ugu soo go'aamiyeen marar badan inay gabadhu tahay shay aan ruux lahayn buugga Ecclesiastes la yiraahdo ee Bible ku jira waxa uu leeyahay markuu xikmad iyo walba ka soo sheekay waxa uu leeyahay waxa kaliya ee ka qaraan dhimashadu waxa weeyaan gabadh qalbigeedu yahay dabin gacmaheeduna yahay silsilado taasoo ninkii Ilaahay jecel yahayna uu ka carari doono kii kale ee dambiilahana la hari doonta Book of 1 Samuel sadarka 13aad iyo Book of Joshua sadarka 10aad iyo sadarka 6aad waxa bannaan in dumarka la laayo yani dumarka in la laayo waa ay bannaan tahay sidoo kale haddii nin iyo naag ay islaayaan oo nin xaaskiisu ay u heliso odaygeega oo ay ninka kale xeeninta qabato xaaskaaga ayaa laga rabaa inaad gacanta ka goyso xataa iyadoo ku helisay inaad gacanta ka goyso waxaan intaas ii dheer you shall not pity her uma naxariisanaysid ee waad ka goynaysaa Paul waxa uu leeyahay book Ephesians-ka sadarka 5aad waxa uu leeyahay women have no power yani wives have no power xaasasku ma leh wax awooda saa darteed waxaa laga rabaa inay odayaashooda iskugu dhiibaan sida ay Ilaahay iskugu dhiibayaan yani sidoo kale waxa uu leeyahay book Romans-ka Paul waxa uu leeyahay the natural use of women waxa weeyaan to satisfy the lust of men sida dabiiciga dumarka loo isticmaalo waxa weeyaan in ragga lagu raali geliyo shahwadooda Book of 1 Timothy sadarka 2aad ayada 12 ilaa 15 markaan akhrino saddex shay ayaa muhiim ah laga soo baxaya waa kuwa dumarka in laga rabo inay haadaan silent kuwa afka inay isku hayaan sidoo kale inay submissive haadaan oo ay isku dhiibaan odayaashooda sida Ilaahay ay ugu iskugu dhiibaan sida marka hore soo dhaafnay iyo saddexaad oo ah pregnant inay noqdaan kuwa uur leh yacni uurku waxa weeyaan wado ka badbaadinaysa naarta dumarka Book of 1 Corinthians la yiraahdo sadarka 14aad waxa uu Paul sheegayaa waa ceeb baa uu leeyahay gabadh in ay ku hadasho kaniisadda dhexdeeda yani waa shay ceeb ah oo laga khajilo in gabadh ku dhex hadasho kaniisadda Part Ehrman waxa uu leeyahay buuggiisa Forged la yiraahdo waxa uu leeyahay dumarka looma ogoleen xataa
inay su-aal weydiiyaan oo kaniisada dhexdeeda wax su-aala weydiiyaan. sidoo kale child bearingkuna waxa inay uur qaadaan waxay ahayd hab ay ku janno raadinayaan iyagoo kaga badbaadaya. sidoo kale inay uur qaadaanna waxay ahayd waddo ay naar kaga badbaadayaan. xataa Robert Spencer maaha atheistiska ama kuwa mulxidiinta sheegta laftigooda. The Mismeasurement of Man buugga la dhahdo ee Stephen Gould qoray waxa uu leeyahay gabadha horta si kasta ninka waa ay ka hooseysaa, taasi hadal male, laakiinse waxa laga doodi karaayo laiskula iman karaayo laiskula fadhiisan karaa waxa weeyaan in intellect the degree ay ka hooseyso, in intellect ba ay ka hooseysaa, in intellect bay gabadha ninka ka hooseysaa unba wax laga dooda inay ka hooseyso wax laga dooda maaha. waayo gabadha caqligeedu waxa uu u dhow yahay caqliga gorilla, yacni daanyeerka gorilaha ayay iyadu u caqli dhowdahay, saa darteed ragga way ka hooseysaa. isagoo isla buuggiisaasi ku xusaya in dumarku marka la eego evolution ahaan ay caqli ahaan ka hooseeyaan, intellectually ay ka hooseeyaan ragga. waxaa intaas ku darayaa in ay gabadh u dhowdahay ciyaalka iyo kuwa savageska bilaa nidaamka ah ee sida burcadda ah oo ayna ahayn sida ninka weyn, yacni qof ilbaxsan oo horumarsan oo civilized ah. Richard Dawkins isna waxa uu leeyahay inaad tiraahdo yacni kufsigu waa shay xun, waxa weeyaan shay bila reason ku dhisan, bila caqli yacni ku dhisan hadalkaasi. markaas shacbi ahaan waxa lagu xanfartay inuu soo fiiqayo dhan iyaga laftigooda ayaa ahba kuwa dumarka dulmiyay. balan tagno taariikhda laftigeedu ma ah mid gabadha wanaajisay. waxaan ka bilaabo dowladda la dhahdo Farisiinta. dowladda Farisiinta Kisra waxa uu guursaday gabadhiisa dabeedna waa uu qowracay. weliba anigu si kooban ayaan wada hormari doonaa. dowladda Romaaniyiinta Antogo waxayna ahaayeen dowladii xilligii Islaamka qaybsanayay iyagoo adduunka xilligii Islaamka soo baxay. Romaaniyiinta waxaa dhacday inaa kulan laiskula soo fadhiistay, dabadeed kulankaasi lagu soo gooyey, yacni waxa laga niqaashiyay gabadha iyo arrimaha khuseeya. dabadeed kulankaasi waxaa lagu soo go-aamiyey oo lagu soo gaadhay inay gabadhu tahay shay aan ruux lahayn, saa darteed ay tahay inayna meat cunin, yacni hilibka ayna cunin, ayna aamusnaatana, yacni sida uu Paul halka hore soo sheegayay women should be submissive, waa inay ahaadaan kuwo submissive ah oo adeeca, waa inay ahaadaan silent, kuwa afka xidha, sida halkan lagu go-aamiyey weeyaan afka xidha and pregnant oo uur qaada. haddaba iyagu waxay soo go'aamiyeen inay afkana xidho, saa darteed waxay ku nabeen quful weyn oo birax ay afka kaga xidhi jireen. intaas waxaa u dheer ninku hadduu gabadhiisa dilo wax hadal ah oo laga weydiin jiray ma jirin xilligaa dowladda Romaaniyiinta. haddaba hindiya ma dhaamin. hindiga ninku yacni iyo si heer ay gabadhu ka gaadhay ninka ragga ah ee qaba ayaa ku qamaari jiray oo qamaarka ku sharatami jiray. dabadeed haddii isaga qamaarkaasi laga guulaysto sida alaabtaba looga qaadanayo looga hantinayo ayuunbaa iyadana looga qaadanayo. xataa waxayna ka gaadhay in gabadha marka la guursado ay u hoyatoy tagto guriga odaygeeda iyo ehelkiisa, ay halkaasi u adeegto. kadib markay u adeegaysana ay dulmi iyo ihaanaad ay kala kulantay iyo dhibaatooyin badan, taasoo mararka qaarkood keeni jirtay inay hablo badan oo hindiye ay jirkooda ay gubaan, dabeedna saas ugu dhintaan. geeridana ay u arkaan waddo raaxo oo ay uga kalato oo kaga takhalusta dulmigan ay ku sugan yihiin. China gabdhaha dabcan xishood iyo xushmo ayaa lagu korin jiray iyagana, laakiinse marka la guursado reerka odaygeeda ayay tegi jirtay, halkaasoo dulmiyo kadeeda ay kala kulmi jirtay ilaa ay geerida uga raaxayso. marka ay geerida uga raaxaysana raggii ay iyadu dhashay hablaha ay guriga keenaan ay soo guursadaan ayuu culaysku ku wareegay. Antago carabtii before Islam, carabtii uu Islaamku u yimid waxa ahaayeen kuwa gabdhaha aasan, kuwa gabdhaha uu ninku markuu aabihii dhinto uu wada dhaxlo aabihii iyo xaasaskiisii uuna guursado. ninku uuna laba hablood oo walaal ah uu mideeyo oo guur ku mideeyo. waxay ahaayeen kuwa xataa gabadha markay aasaan aan la iska weydiin. waxaana hadalkooga soo koobaya Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu, halkaasuu leeyahay annaga berigaygii gabdhaha waxbaba uma la arki jirin ilaa uu ilaahay waxyiga uu soo diray oo uu warkooga cadeeyay. xilligaas ayuu Islaamka yimid oo uu siiyey gabadha xaq ay wax ku hantiday wax ku yeelato, oo uu siiyey gabadha xaq ay wax ku dhaxasho. lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqarbu walinnisaa'i nasiib. saasuu qur-aanku u simay oo uu siiyey xaq ay wax ku dhaxasho. uu Islaamku diiday xilligaasi in iyaga qasab lagu dhaxlo oo la qasbo, oo ilaahay yidhi laa yaxillu lakum an tarithu nisaa'a karaha, idinma banaanayna dumarka ad qasabtaan. xilligaas ayuu Islaamku yimid oo uu diiday in dumarka cadowga la socda ee xilliga jihaadka lala dagaalamo iyagoo cadowga durmaanka u tumaya, una imiday inay daawadaan muslimiin hortooda lagu qowracayo. dadkaas dumarkaas ayaa uu Islaamku xataa xuquuq siiyey
inaan la dilin. Halka Bible aan kusoo dhaafnay in xataa dumarka uurkooda la jeexayo oo xataa ciyaalka yar ee dhashay la qowracayo ee imika u dhashay xataa sanadka gaadhay. xilligaas ayuu Islaamku intaas oo dhan intuu ka yimid oo u dooday gabadh yaray ee inta la aaso aan laba odayna iska hor imanayna laga tashanay maxaa lagu aasay waxaasi uu ka yidhi rabbu samaawaati wal ard, ilaaha samadan iyo dhulkan abuuray ayaa u doodi doona qiyaamaha oo odhan doona biayi dambin qutilat, dembigee lagu dilay, se maxaa lagu dilay kasbatay yartani. xilligaas ayuu Islaamku yimid, gabadhana xoreeyey, uuna shareeco keenay la simaysa ninka oo iyada laftigeedana ilaalinaysa. Islaamku waa ay siman yihiin, nin iyo naag xagga ilaahay way u siman yihiin, balse isku mid ma aha. taasina ma aha xaqiiq la iska indhatiri karo. ayaa uur qaadaba waxa qaada gabadh, ma aha wiil. kuwan idinle rag iyo dumarku waa isku mid ee aad leedihiin maanta diinta islaamka ka tegayayo oo waxaan tegaya diinta heblaayo, waayo waxay leedahay rag iyo dumarka isku mid ah. gabadhnimadaada unbaad ahaanaysaa, gabadha aad tahay baad ahaanaysaa. hadda islaamka tagto meel kasta tagto xubin dheeraadna kugu soo kordhi maayo, iyaguna way garanayaano. saa darteed bayna nin iyo naag ayna feerfeers u keenin, waayo isku mid ma aha. laakiinse xaq iyo xuquuq marka loo yimaado islaamku waa simay, waana la simay gabadha wiilka. aayadda qur-aanka ugu cadaynta fiican waxa weeyaan suuratu Axzaab. ilahi wuxuu leeyahay ina almuslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaati walqaanitiina walqaanitaati wasaadiqiina wasaadiqaati ilaa aakhiri wasaabiriina wasaabiraati. sida ragga muslimiinta ah dumarka muslimiinta ah, dumarka mu'miniinta ah dumarka ragga mu'miniinta ah dumarka mu'miniinta ah. yacni islaamka maasha allah si fiican baa u simay, isagoo standardka ama ilaahay dhawaashiisana islaamku ka dhigaya ina akramakum cinda allahi atqaakum. nin inaag waxaa doontaa hawo ilaahay ka ugu dhow waxa weeyaan inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. nin inaag waxaa doontaa hawo qabiilkaa doontana kasoo jeed, ilaahay ka idinku dhow ee xagga ilaahay ugu karaamo badan waxa weeyaan atqaakum, ka idinku alla ka cabsi badan ee ilaahay ka warhayn badan, kaas weeyaan ka idinku karaamada badan buu ilaahay leeyahay. intaasna waxaa dheer inuu ilaahay leeyahay nin iyo naag waxaa doontaba hawo man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba. nin iyo naag bakaa doonta hawo bahtaad camal wanaagsan la timaado adigoo mu'mina, falanuxyiyannahu xayaatan tayiba. ilaahay waxaa ku ballan qaadayaa nolol wanaagsan. yacni ilaahay way u sameeyeen nin iyo naag waxaa doonta hawo, laakiinse farqiga la isku dhaafaya waxa weeyaan taqwada iyo niyad wanaagga iyo ilaahay ka warhayntiisa iyo wanaagga iyo camalka wanaagsan iyo iimaanka. ma aha nin iyo naag baan ahay. intaas waxaa dheer inuu qur-aanku amray ragga oo ka yidhi wacaashiruhunna bilmacruuf, war dumarka kula noolaada wanaag, wanaaggaasoo ku salaysan xaq iyo xuquuq loo siman yahay guriga iyo madasha, taasoo ay miisaankeedu tahay walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf. waxa laga rabaa kan waxa saaran in leeg ayuunbaa laga rabaa inaan u siiyo. yacni gabdhaha xaq iyo xuquuqda ay leeyihiin waxa weeyaan waajibaadka saaran ee iyaga laga rabo inay ninkeeda ay siiso, yacni inay ka farxiso, inay wanaajiso. intaas iyada laga rabay waajib lagaga dhigay in leeg ayuunbaa ninkana laga rabaa. walahunna waxay leeyihiin mithlu alladii calayhinna bilmacruuf, inta laga sugaye wanaag ah ee laga rabo ayuunbaa iyagana la siinaya. bal xataa waxa dheer walilrijaali calayhinna daraja, ragga ayaa weliba in lasii kordhiyo sida ibnu cabaas leeyahay. intaasna waxa weeyaan ina uu ninku ka khafiifiyo mas-uuliyaadka weliba gabadha isagu ku leeyahay ee waajibka ah ee uu ku leeyahay inaa uu isagu ka dulqaato oo uu ka khafiifiyo. wataas diinta islaamku oo xataa marka uu gabadhan uu karho ee uu doono inuu furo waa diinta jeclaysiinaysa kale. casaa an takrahu shay-an fayajcalu allahu fiihi khayran katiira. war ha degdegin, laga yaabaa in waxaanad ka dirasiiyo qofkanaad ka cararayso uu ilaahay kuu dhigay oo dhexdiisa keeno khayran katiira, khayr badan oonad ogeyn uu ilaahay kuu dhigay. bal xataa marka uu diidu doonayo inuu furana islaamku waa diinta amraysa kale fasarrixuuhunna saraaxan jamiila. adoon caayin, adoon dilayn, adoon gumaysanayn, adoon u hanjabayn, fasarrixuuhunna saraaxan jamiila, si wanaagsan u fasax. subxaana allah, maxaa ka wanaagsan diintaasi? fasarrixuuhunna saraaxan jamiila, waayo ilaahay waa jamiil, walaa yaqbalu ilaa jamaalan. ilaahay waa qurxoon yahay, wax aan qurx ahayna ma aqbalo. qofka aad sida wanaagsan usii daynaysiina waa qof xilligay kula nooleyd, waa qof xilligay kula nooleyd ay kow ubadkaagaad adigu ugu jeceshahay naftaada u horayso ay ahayd halka ay jannadoodu hoos taalo. nabiga calai slam wuxuu yihi aljannatu taxta aqdaamin, hooyada ayay jannadu hoos taallaa. qofkan aad furayso ee aad sida wanaagsan ugu sii daynayso islaamku leeyahay si wanaagsan usii daa, waayo ubadkaaga aad ugu jeceshahay adduunka ayaa 7% jacaylkooga iyo wanaagooga ay ahayd inay iyada siiyaan, laguna waajibiyay inay iyada siiyaan. 5 kasoo haray iyada kasoo haray ayaa adigana lagugu talagalay. siduu nabiga caleyhi wasalaam yidhi uma ummuk uma ummuk uma ummuk
thumma abaak yacni 4 meelood oo 3 meelood iyada ayaa kalgacaylkii guriga wanaagiisa leh wanaagga la siinayo iyada ayaa ubadkaagana jeceshahay laga rabaa inay iyada wanaajiyaan halka meela soo hadhay adiga lagu rabo waxayna ahayd saddexaad qofka laga qiimeynaya raganimadaada iyo wanaagaaga marka la joogo dul islaam nabiga calayhi salaam wuxuu yiri khayrukum li ahli ka idinku wanaagsan ee idinku khayrka badan waxa weeyaan kayda ina ugu wanaagsan ee ugu wanaajinta badan xaaskiisa iyo ehelkiisa iyadoo weliba islaamku uu diiday in laga been abuurto oo la yiraahdo gabadhaasi sharafta cirdigayga meel laga dhaco halka maanta haddaan cilmaaniyad iyo aan qaadano iyo maraykanka meel kasta aan joogo aan gabadha caayi karo waxaan doonana ka been abuuran karo saan doonana cirdigayga ugu dhici karo u caayi karo iyadoo aan odhan karo markaana xorriyatul qowl ayaan caayi oo xorriyada hadal iyo freedom of speech ayaan caayi laakiinse islaamku saas maaha waa diinta haddii aad caydood ka been abuurto gabadh 80 jeedal ku sugaya bal xataa 80 jeedal waxa ka weyn inaa uu nebigu ka dhigay 7 muudiqaad 7 halaaga qofka ee diintiisa inay baabiyaan keena ay tahay inuu gabadh muslimada oo mu'minada uu sharafteeda ka been abuurto meel kaga dhaco wataas diinta islaamku waxaasoo dhan oo inaynu gurigeena aynanu maaganin inuu qur-aanku leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana meelo badan waxaan bini-aadanka ku dardaanay hooyadii iyo aabihii waalidkiisa inuu ixsaan falo xamaladku dabadeed maxaa la takhsiisinaya la gooyay isha loo saaraya xamaladku hooyadii baa intaasoo dhan soo siday uurkaasi kurhan calaa kur wahnan calaa wahn kolba wax yani dhibta hooyadii la soo martay ayaa la xasuusinaya suu iyada mudnaan gaar ah u siiyo iyadoo xataa haddii ay gaala yihiin labadaba lagaa rabo wasaaxibhumaa fi dunya macruufa inaad labadaba u wanaag fasho wataas gabadhii qarnigii 7aad la aasayay maanta jannadu ay cagteeda hoos taalo islaamku waa la simay xaq iyo xuquuqda sidaan soo aragnay gabdhaha iyo ragga laakiinse islaamku waa u qarsan yahay ninkana ninnimadiisa u qarsan yahay gabadhana gabadhnimadeeda u qarsan tahay mid walbana wuxuu mas-uuliyad iyo waajibaadka u saaray kuwa ku habboon dabeecadda iyo qaabka uu abuuran yahay sidaa darteed buu islaamku waajib kaga dhigay ninka haddii uu tuug soo dhaco inuu ka idhaahdo xaaskiisa isku mid baan nahay orado adigu kan caawa qabo ka habeen dambe soo dhacaan aniga igu daa balse maadaama isaga ilaahay ku fadilay quwadda iyo quwatulbadan iyo jismi laga rabo isaga waajib laga dhigo mas-uuliyad laga dhigay inuu iyada ilaaliyo amnigeygana uu sugo sidaas si lamid ah ayaa gabadhana waajibaad laga dhigay waxyaabo ku habboon dabeecaddeeda iyo wanaaggeega saa darteed baana loo siiyey ajar ay ku mutaysanayso xamliga iyo uurkiiyo kadeedka ay qaadayso ilmo 9 bilood uu islaamku ajar kaga dhigay bal waa xataa darajo jannada cagteeda ay hoos noqonayso kaga dhigay halka bibleka ay ahayd inkaar uu ilaahay gabadha duldhigay iyo ciqaab lagana ayna tahay waajib inay uur qaadaa si ay u hesho salvation ama si ay janno u raadisay dambi dhaaf u hesho markaasoo inoo imanaya nin qarnigii 19aad ku baraarugay inay hooyadii dulmisaneed iyo walaalihii markaasuu ina leeyahay ileen doqoni siday tahayba dadka moodaayeen markaasuu siday gabadhii barisay hooyadad sida loo dhalo ayuu inaga inoo imanaya leeyahay dumarkiinuu dulmideene han idin baro sida dumarka loo wanaajiyo subxaan allah waxaan joognaa zaman ayna raggu xujo loo hor imanayn balse cid walba waxay ku hadlayso ay u hadlayso waayo meesha maxay miday freedom of speech xataa ninka waalan ayaa xorriyatul qowl ku hadlaya oo hadalkiisa xujo laga dhiganaya waayahay haddaba haddii ahmadeequ diinta islaamku saas u wanaajisay gabadha maxay kow dhaxalka uga dhigtay ninka inta uu qaadanayo barhkeed ay gabadha u siisay subxaan allah jahliga shareecada inaga haysto waxa weeyaan inaan kow cadowgeen iyo miidyada intaan ka qaadano aan diinteenna dusha ka istaagno dabeedna aan go-aan iyo judgment sameexino way su-aashan markaan ka jawaabayno waa kowe ma aha nin iyo naag waxaa tahay balse waa darajada loo kala dhow yahay oo qofka qofka uga dhow yahay ayaa uu ka dhaxalka yacni qayb ka weyn uu qaadanaya saa darteed aniga iyo walaashay laakiinse aabbahay labadeedu waan u simannahay balse sababtaan anigu in lebilaabkeed u qaadanayay waxa weeyaan waayo islaamku waxa way duldhigay mas-uuliyad ka weyn iyada oo aniga ayaaba iyada ka mas-uula lagana rabaa inaan iyada beediyo iyaduna inteeda way haysanaysaa ayoo haddoonaynu guursadan ninkaasoo islaamku qawaamada duldhigay iyo guriga inuu infaaq ku sameeyo isagu guriga quudiyo iyaduna inteeda way haysani halka anigu inteedii ay tahay inaan iyada ku bixiyo saa darteed baa laygu libilaabay talabaadna haddii nin iyo naag ay tahay inta ay walaashay qaadanaysay way ka badan tahay inta uu awogey qaadanayo awogey miyaanu nin ahayn aawa nin iyo naagta la kala saaray laga sheekeynaya ta saddexaad waxa uu dhacaa qaabka uu dhaco inta qaaba u dhici karo dhaxalka waxa weyaan ilaa 34 nooc weyaan 34 nooc 6 jeer ayaa wiilka kala barhkii ay gabadhu dhaxashaa inta kale
gabadhu ama in leeg bay dhaxshaa ama in ninka ka badan ama mararka qaarkood ninku ma dhaxle iyada keligeed ayaa dhaxasha. laakiinse jahligayna haysto waxa weeyaan intaad shareecadu qof kasta saa u eego ayaa gunta loogu dhaadhacayn dabeedna dusha go-aan laga gaadhaya. wa subxaan allah. waayahay ka waran haddaba markhaatiga miyuuna markhaatigu islaamku aanu ka dhigin markhaatiga halka nin mid u dhigma 2 hablood? taasina waa qalad, ma aha had iyo jeer. waayo qur-aanka laftigiisa ayaa markhaatiga hal gabadh ka dhiga inuu la sinaan karo hal wiil, sida suuratu nuur ku cad ee ilaahay leeyahay fashahaadatu axadihima biarbaci shahaadaati min allah. sidoo kale gabadhu waa ay markhaati furi kartaayo markhaatigana waxa asli u ah inuu qofku saliim alcaqli yahay iyo qof waalan aanu hayn, uuna yahay qof goobjoog u ah arrintan uu ka markhaati kacayo, sidoo kalena ah qof amiina oo ammaano leh ayaa u asli ah ee ma aha waxa u asli ahay nin iyo naag cidda uu yahay. saa darteed bay gabadhi hadday bisha rabadaan aragto aan loo weydiinin ma gabadh baa tahay mise wiil baa tahay loo eegaya ma runteed baa mise waa beenteedu, sida hadduu nin arko loo eegayo ma runtii baa mise waa beenteedu. markaa gabadh yes markhaati way furi kartaa keligeed islaamka, wayna odhan kartaa bishii rabadaan waan arkay, waana shahaadadeedana waa la qaadan karaa markhaatigeegaasi, cid dambana lama eegayo, 2 habloodna lama rabo. sidoo kalena bisha ciiddii baa gaadho wayna arki kartaa oo fidriga waa ay sheegi kartaa. markaasi xaalado gooniya ayaa diinta islaamku uu ka soo reebay oo uu ka dhigay markhaatiga ninka inuu 2 uun la mid noqon karo ee ma aha had iyo jeer. xaaladahaasina waa xaaladaha ay ka mid tahay suuratu dayn aayatu dayn ee suuratu baqara ee laga rabo xilliga dayntii financialka laga rabo in hal wiil iyo haddii hal wiil la waayana 2 hablood la keeno, taasoo weliba laysku geejinayo an tadilla ixdaahuma fatudakiraha al-ukhra, si haddii ay midi ilowdo loox ay inta kale u xasuusiso. subxaan allah. qofka dibadda ka joogay labada ee caqligiisu saliim yahay in shubha raadisiya munaafiqnimo aan raadinayn is odhan lahaa waa rur dumarka waatan laysku geejiyey ee xataa haddii ay ilowdo laga sii fikiray ee la leeyahay haddii ilowdo tani ha xasuusisay maxaa ragga loo dulminayaa ee ragga nin keliya looga dhigaya. subxaan allah. laakiinse waxa weeyaan xilli jahli cid walba waxay doonto ku dhawaaqda ayaa la joogaa. waayahay waxaas lagu aflagaadinaya islaamka ay maanta leeyihiin waxaase sidaas ku sameeyey dumarku waa wax ayna helin gabadha reer Yurub ilaa qarnigii 19aad mooyaane. waa sida ay leedahay Karen Armstrong buuggeega la yidhaahdo Muhammad the Prophet for Our Time. saa darteed haddaba ujeedku waa maxay? waxa weeyaan in gabadha la rabo inuu islaamku waxa weeyaan ujeedku haddaba in islaamka laga dhigo mid la sima gabadha wiilka, waayo waa ay siman yihiin wiilka gabadhu. sidaas oo aragnay hadda ujeedku waa maxay? ujeedku waxa weeyaan walaashayay in gabadha muslimka ah lala simo fircoon ayaa la rabaa oo heer ilaahnimo laga gaarsiiyo oo shareecada iska weynaysiiso oo ay tiraahdo waxa weeyaan ilaahay wuu idulmiyey, dabeedna ay nafteeda xataa iyadoona afkaba ka odhan ay tiraahdo ana rabbiya alaclaa, aniga nafteeda u rabbiya ay tiraahdo diintasaa ka baxdo, dabeedna ma-aalkayga iyo godkaygu uu noqdo mid ay fircoon wadaagaan. taasina ikhtiyaarka adiga ayaa wada walaashayay inaad go'aansato. ta kale waxa weeyaan caqliga ayaa la yasayaa, caqliga gabdhaha ayaa la yasayaa. waayo ninkani iyo raggani maxay u iman laayihiin ay ragga u leeyihiin oo shareecadu ragga way dulmiso. kow, dahab bay u diido gabadha ayay dahabka siisay ka tiri ku xaraamo, ninkana waa u dayday inuu dahab xidho. 2, 75% jacaylka galgacalka guriga waxay siisay gabadha ee aabbaha ma aysan siin. 3, jannadii ayay hoos dhigtay hooyada, aabbahana umaysan siin, ragga way dulmiday. ta 4, ragga bodyguards bay uga dhigto, muxram bay uga dhigto, gabadha inay ilaaliyaan ay daba socdaan oo ka ilaaliyaan yeeyada ayay ka dhigtay sidii qof xaaris ah oo bodyguard ah oo iyadoona ilaalinaya. markaa ragga way dulmido dumarkii bay addoon uga dhigteen oo ragga hal xoray. maxay odhan laayihiin? way og yihiin inayna waxaan ahayn wax rag lala hor yimaado, laakiinse caqligaaga ayaa la yasaya laga tocsanaya. ugu dambaynna dumarka islaamka iyo hablaha islaamka hawl ka weyn ayaa haysata oo ah in hadal sinaan iyo waxaan kala weyn oo ah hadday hooyo tahay ubadkayga waxaa jeceshaa inay nabad uga baxaan, nabadna ugu soo noqdaan iyagoo la layn gacanna go-nayn. ayaa maanta diyaarada ku rusheynaya dumarkii islaamka ubadkoogii oo iskuulladii iyo amnigoogii ku ciyaaraya oo si dadban iyo si toos ah u laynaya ubadkoogii, diyaaradana ku rusheynaya, qaraxyana dhulkoogii ka abuuray. ayaa maanta guryihii risqi la-aan ku riday oo raggii u bixi lahay usoo adeegi lahaa laayay oo maanta intay rusheeyeen intaasoo qofi ay maanta faqri iyo gaajo ugu dhimanayeen guryahoogii. ayaa maanta intaasoo dumar ah oo gurigooga uu odayaashooda ku biilinayeen suuriya, ciraaq, meel kaste ay odayaashooda si ammaana ku biilinayeen gurigooga oo si wanaagsan maalin walba qood heli jiray, maanta ka soo saaray gurigoogii oona geeyey meel ay jirkooga ka ganacsadaan si ay risiqi yaroy ubadkooga ku quudiyaan ay u helaan. ayaa maanta waxaasoo gafaf ah iyo qas ka abuuraya waddanada muslimiinta oon ahayn iyaga se gabadh walbana odaygeygii ay jeclayd ee guriga ku hayay ee asturay
ka dilay maanta iyadana banaankii guriga uga soo saaray si ay u ugaarsadaan yeeyaasha gaajoonaya ee aan laa yarqabuna fii mu'minin walaa dhimma in qofka mu'minkaa cidnaba ugu tixgelinayn xataa insaaniyadii bilaadanimo aan u eegayn ay banaanka inay ka helaan gabadhii ayaa u suurtageliyay maanta. waxa weeyaan haddii jacayl iyo galgacayl idinka tahay gabadha inaad xorriyad gabadha muslimka xorriyaddeeda waxay rabtaan fadlan amnigayga suga oo horta u ogolaada inay noolaato. ta ugu dambaysa kaga baxay waxa weeyaan waxaan xasuusinaya gabadha muslimka ah inuu islaamku yahay diinta timiday xilli adigoo lagu aasayo waxba lagu aray layskana weydiin oo lagana fadhiisanoo la odhan waniyo maxaa heblayo lagu dilay uu imiday kuuna dooday xaqaagana qiyaamaha ka dhigay mid aan dayacmi doonin adigana maanta adduunyada kugu sharfo jannada oo ah meesha sacyiga uu cid walba u socdo jannadaas dhigay maanta cagahaaga. Wassalaamu calaykum.